kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka channelka Dana Media qodobada aan ku soo qaadan doono waxa ka mid noqonaya ciidanka kumaandooska oo gacanta ku dhigay horjooga ka tirsan nabadiidka argagixisada Al-Shabaab maleeshiyad ka tirsan Al-Shabaab oo lagu dilay gobolka Jubbada Hoose xarumaha nabadiidka Al-Shabaab ku lahaayeen gobolka Shabeellaha Dhexe oo la burburiyay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo howlgal lagu bacsanay nabadiidka ka wada gobolka Shabeellaha Hoose akhbaraadka caalamkana daawadayaal waxa ka mid noqonaya rag loo kireystay inay dilaan ninkii ugu halista badnaa dunida fadlan daawada haddii aad ku cusub tahay channelka Dana Media subscribe saar like iyo share la wadaag asxaabtaada aan ku bilaabay qodobka ugu horeeya warka Dana Media howlgaladani ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka wadaan gobolka Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose ayaa ujeedkiisu yahay bacsiga cidhibtirka maleeshiyadka argagixisada Al-Shabaab iyo burburinta meelaha ay ka soo maleegaan dhagarta ummadda Soomaaliyeed deegaanada howlgalada ciidanka xoogga dalka ay ka sameeyeen waxa kamid daawade deegaanada Godofar Xaluushin Diidow Buula Dhagaxow Buula Macalin Duuray Banyaale kuwaasi oo ka kala tirsan gobolada Shabeellaha Hoose iyo Shabeellaha Dhexe intii howlgalku socday ciidanku waxa ay ku burburiyeen maxkamad beenaadyo meelo shacabka ay ugu qaadi jireen lacag baada sidoo kale ciidanka ayaa gacanta ku soo dhigay maleeshiyad ka tirsan kooxda nabadiidka Al-Shabaab sida uu idaacada ciidamada qalabka sida uu sheegay Cabdullaahi Mustafa Ali Madaale qaran oo ah sarkaalka howlgalka hogaaminayay howlgalkan ayaa qayb ka ah howlgalada guud ee nabadiidka Al-Shabaab looga saarayo deegaanada farakutiriska ay uga sugan yihiin koonfurta iyo bartamaha dalkeena Soomaaliya taliyaha qaybta 12aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Generaal Maxamed Cadow Cali Sanka iyo taliyaha qaybta 7aad Axmed Maxamed Cali Sowtare dishay saraakiil kale oo ayaa booqday askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo ku dhaawacmay difaaca qaranka booqashadan saraakiishu ay booqdeen askariga ayaa uga dhigan inay muujinayaan garab istaaga isla markaana u dareensiinayaan inuu qarankiisa garab uga taagan yahay dhinaca kale saraakiisha labada qaybood ee 7aad iyo 12aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa yeeshay kulamo lagu dardargelinayo howlgalada bacsiga nabadiidka Al-Shabaab iyo sidii labada qaybood uga wada shaqayn lahaayeen dardargelinta howlgalada howlgalkan ay wadaan ururka 7aad ee guutada 16aad ee ciidanka kumaandooska Danab ayaa si habsami leh uga soconaya deegaano ka tirsan labada gobol ee Shabeellaha Hoose iyo Shabeellaha Dhexe deegaanada howlgalkani ka dhacay ayaa waxa kala ahaayeen Buula Bariise Buurfuule Malayle Madaxdigsi iyo Galooley oo ka wadsan gobolada Shabeellaha Hoose iyo Shabeellaha Dhexe howlgalkan oo ujeedkiisu ahaa burburinta fariisimaha nabadiidka Al-Shabaab ayaa waxa halkaas lagu dilay maleeshiyad ka tirsan argagixisada Al-Shabaab isla markaana ciidanku waxay ka sameeyeen baaritaano amniga lagu xaqiijinayo deegaanadan nabadiidka Al-Shabaab ayaa dhaqan u leh inay dhibaateeyaan bulshada shacabka Soomaaliyeed ee aan waxba galabsan dhibaatadaasna waxa kamid ah daawade inay u geystaan dhac kufsi boob hantiyadeed iyo tacadiye kale balse ciidanka kumaandooska Danab oo ka soo galay deegaanada jihooyin kala duwan ayay sababteen maleeshiyadka Al-Shabaab ay iskaga firxadaan halkan ciidanka kumaandooska Danab oo ah kuwa u carbisan bacsiga Al-Shabaab ayaa waxa ka go'an inay gaaraan goob kasta oo cadawgu isku dayayo inuu ku dhumaalaysto ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa howlgal ka sameeyay nawaaxiga deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose howlgalkan ay ciidanku waxay ku dileen maleeshiyad ka tirsan argagixisada Al-Shabaab howlgalkaas ay ciidamadu qaadeen kadib markii ay ka warheleen duulaano gaadma oo argagixisadu qorsheynayeen inay la beegsadaan fariisimaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa sidoo kale lagu dhaawacay 3 ka tirsan nabadiidka Al-Shabaab 4na waa lagu dilay saraakiisha hogaaminaysa howlgalka ee ka tirsan qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa soo sheegaya in cadawga ay gaarsiiyeen jab xoogan kana furteen sanad ciidanka xoogga dalka ayaa la sheegay inay dhulka miyiga ah ku sii bacsanayaan firxadka maleeshiyadka iyagoo inta ku daray inay ciidanku ku dhow yihiin deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose oo ay nabadiidku ku dhibaateeyaan dadka shacabka haatan akhbaraadka caalamka sanadkii 1989 koox caloosho-shaqaystayaal ah oo u dhashay Britain ayaa u safray sidii ay u soo dili lahaayeen ninkii ugu halista badnaa caalamka waxaana kooxdaasi hogaaminayay Batar nin lagu magacaabo ninkan ay raggaasi qorsheynayeen inay qaarajiyaan wuxuu ahaa Pablo Escobar kaasi oo hogaaminayay burcadda daroogada ee Medellin oo ka jirtay dalka Colombia waxana uu ahaa burcad u taajirsan abidka dunida Soomaaliya waxa uu ninkii soo saari jiray daroogadii ugu badneed ee kokiinta kadibna caalamka oo dhan la geyn jiray waxana mas'uul ka ahaa mandooriyaasha dunida 80% xilliga uu noolaa guud ahaan daawadayaal intaas ayaan ku soo afmeeraya warkii aad kala socoteen channelka Dana Media fadlan daawada haddii aad ku cusub tahay channelka
subscribe saar like iyo share la wadaag asxaabtaada iyo inta necab nabadiidka al-shabaab commentiga noogu reeb wixii fariina taladaadu waa noo muhiim qancintaadu waa shaqadayada daawade sidaas iyo nabadgelyo
عدو دميني